madaxweynayaasha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si wada jir xariga uga jaray dhismaha cusub ee safaaradda Djibouti ee Soomaaliya. munaasabadda xariga looga jariyay dhismaha cusub ee safaaradda Djibouti ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha labada dal, golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya, diblomaasiyiinta dalalka shisheeye ee Muqdisho ka howlgala iyo marti sharaf kale. ugu horeyn madasha waxaa ka hadal jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isagoona sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada caasimadda Muqdisho ay ka turjumayso wanaagga iyo jacaylka ay Soomaaliya u hayso reer Djibouti. waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo Soomaali waa dad goob ah. Soomaali waa dad goob ah oo abaal leh. abaalkan hadda aan muujinayno oo aan ku tusayno runtii waxaa ka horeysay abaal kale oo ummadda Soomaaliyeed ee hore ugu geysatay dowladda iyo dadka reer Djibouti waalaheena. waxa weeye macdama dhaqankeedu yahay abaalku inuu wax weyn yahay ra'iisul wasaarayaashii ee dalku soo maray nin ka mid ah soo dhagax dhigay anna xarigan ka soo jaray. intaasi waxa u dhaxeeyay dowladda Soomaaliyeed 5 dowladood oo isbedelayay. Ismaaciil Cumar Geelle wali waa jooga oo projectkii uu bilaabay waa dhameystiray. annaguna waa isgadinayni waa isku rogayni. macnaheedu waxa weeye inaan wax ka baranno taariikhda, inaan wax ka baranno xasiloonida siyaasadeed iyo deganaanshaha, inaan wax ka baranno. dhanka kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu xusay inuu ku faraxsan yahay booqashadii Muqdisho uu ku yimid isagoona sheegay inuu miro dhalay dadaalkii ka bilowday Carta. hil inaga buuxa labadeena shacbiba waxa aan xusaynaa marxalad taariikhi ah oo na soo martay 20 sano ka waxaan u xusaynaa waxa weeyaan inaan iimaanka sii jadiidsano oo aan يعني سعودال دير oo kale oo aan ku xaqiijinay gobonnimadeena adkeynteeda cizigeena iyo sharafteena tartanka aan la galayna dunida annaga oo isku duuban ummadeena oon dhageysanayn waxa ay leeyihiin fariinta ay nafarayaan waxa ay naga sugayaan intaba iyaan yani diyaar u nahay ama aan abaabul ugu jirna. waxa aan soo marnay iyo sida uu Ilaahay noo ilhaamiyay noo iftiimiyay in Soomaalidu wax ayaan aan dadka kale lahayn inay leeyihiin oon ilowday ayuu Ilaahayna tusay ayaan meeshaan doonna aan kala dhacnay ee waxa aan yeelnay waxa weeyaan ilhaamkaasi inuu Ilaahay noo xaqiijiyo. wafdiga oo hogaaminaya madaxweynaha Djibouti oo 2 cisho oo booqasho shaqo ku joogay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa maanta soo gabagabeeyay iyagoona dib ugu laabtay dalka Djibouti. سمير عبد الرزاق عمر ورارك تلفزيون كصاب تي في مقالة عاصمة مقدشو.